السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada saaxiibayaal ku soo dhawaada muuqaal cusub. haddii ay tahay markaa kugu horeysa waxaan ku leenahay soo dhawaaw mar labaad iyo mar saddexaad. sidoo kale muuqaalka like inoo saar, share, comment iyo subscribe. aad iyo aad umaadsantahay. haddii aysan ahayn markaa kugu horeysan waxaan ku leenahay mar labaad soo dhawaaw oo muuqaalka inoo qurxi. okay, muuqaalkani xilliga idin duubaya hadday tahay habeen, hadday tahay maalin, hadday tahay xilligu kusoo gaaro waxaan ku leeyahay waxay ku tahayba wanaagsan. muuqaalkan maanta waxaan uga hadli rabaa mise aan wax idinkuga bari rabaa ereya macnahooda magacooda la yidhaahdo homophones. halkan waxaan ku hayaa 20 haddaysan ka yareen erey oo homophones ah. homophones waxaa la yidhahdaa words ereyada with the same pronunciation, kuwaas oo leh dhawaq isku mid ah. macnaha markaad ku dhawaaqaysa ereyada waa isku mid but different meaning. macnaha dhanka micnaha ereyga micnihiisana way ku kala duwan yihiin, laakiin markaad ku dhawaaqayso dhawaqa waa iskaga mid. si walbaad ugu dhawaaqi kartaa, qoraal ahaan way ku kala duwan yihiin, laakiin markaad ku dhawaaqayso dhawaqa waa iskaga mid. qoraaladana waa iskugu dhow yihiin oo aad iyo aad iskugu dhow yihiin, laakiin micnaha markay ereyga micnihiisa waxa waaye laba micno kale uu leeyahay. okay, ereyga ugu horeeya maanta aan soo qaadanayna waa pack. pack waxaa la yidhahdaa kow, the sound of a dog. the sound a dog makes. eyga dhawaqa uu sameeyo, dhawaqa eyga uu bixiyo waxaa la yidhahdaa pack. sidoo kale the outer covering of a tree. geedka qolofta kore waxaa la yidhahdaa pack. sidoo kale the outer covering of a tree. right. right oo ah qor ama isku keen ereyadan oo qor, meel ku qor ama dhul ku qor ama derbi ku qor ama warqad ku qor. so waxaa la yidhahdaa to compose a text, in aad ereya isku keento oo aad qorto. to record a permanent form. sidoo kale right-ka sidoo kale waxay noqonay to record a permanent form, in aad meel ku qorto form ama warqad joogto, like warqad aanan dhammaanayn, like permanent waxaa wax aanan tirmaynin. tusaale form aad diyaarisay, form aanan baxaynin. pat. pat waxaa la yidhahdaa offline maamul. waa shimbir ka mid ah shimbirada buuba, waana af soomaali ahaan waxaa la yidhahdaa kibili. okay, macnaheeda kale waxaa la dhihi karaa a tool used in in baseball. waa qalab lagu ciyaaro banooniga la yiraahdo baseball. night. marka night laba nooc waay. night markii kay la jirto waxaan dhinaa a medieval warrior. waxa waaye weeraryaanka dhexe, maanaa dagaalka markii dagaal uu jiro ciidamada waxaa waaye safka koowaad, safka labaad iyo safka saddexaad. marka safka koowaad maahan, safka labaad waxaa la yidhaha night. sidoo kale night oo ah habeen waa maalinta cagsigeeda. marka night labadan bay noqonaysaa dhawaq ahaan, laakiin micnaha waxay ku kala duwan yihiin. midna waa dagaalyahan, midna waa habeen. sidoo kale bank. bankni walba waa yaqaanaa, waa bangiga lacagaha la dhigto. a financial institution, meel walba oo lacag inaad dhigato aad ku kaydsan karto waxaa la yidhahdaa a bank. sidoo kale the side of the river, webiga qarkiisa waxaa la yidhahdaa bank. af soomaali ahaan haddii aan isku dayo waxaan dhihi karaa jiinka, webiga jiinkiisa. masoo webiga jiinkiisa waa the bank of the river. okay, sea. sea haddii aan macnayno laba macnay leedahay. sea oo sea ah waa a large body of salt water. waa wax weyn, meel macnaha wax weyn oo biyo ku jiraan, oo biyahaas ay yihiin biyo cusba ah. a large body, jir weyn. okay, tusaale camal badda. badda waa sea. marka sea waa bad. okay, sea oo qaabkan u qornaan doontaan haddii aad aragtid waxaa waaye to see with your eyes, inaad ku aragto indhahaaga shay. so to see waxaa waaye aragtida, dhanka indhaha qaabkan ay qoran tahay, laakiin qaabka haddaa aragtid waa badda, qaabka haddaa aragtana wax u qoran waa arag. macnaha see, go and see, bax soo arag. okay, biya. biya waa deero. sorry deero ma ahan, waa bahal weyn, a large animal oo meelaha barafka aad ku qabow ayuu ku nool yahay. sidoo kale to carry, inaad qaado, or to endure, sidoo kale inaad ku adkayso shay. okay, son. son haddii aad aragto waa a male offspring. cunugaaga wiilka waxaa la yidhahdaa waa son, my son, waa wiilkayga. sidoo kale the sun, qoraxda. so marka waa isku dhawaaq sun iyo sun ay yihiin. so the sun sidoo kale
waa qoraxda. marka labadaas macno labadaasba dabaq ahaan waa iskaga mid laakiin micno ahaan way kala duwan yihiin. cell not cell af Soomaali ma haya cell waaye a small room in a prison waa xabsiga qol ka mid ah qolalka xabsiga waxaa la yidhahdaa a cell xabsi oo prison laakiin qolalkeeda qolal walba waxaa la yidhahdaa a cell. sidoo kale waxaa cellka la yidhahdaa a basic unit of life waa unug ka mid a unugyada jirka qofka uu ku nool yahay. sidoo kale waxaa meeshan halkan yaallo sight waxaa waaye the ability to see awoodda aad ku arkayso waxaa la yidhahdaa sight. so the ability to see is a sight. sidoo kale ereyga sight haddii aan kan kiisa kala soo saarno saas ayuu u qoran yahay a location of interest macnaha meel ka mid ah meelaha aad degan tahay waxaa la yidhahdaa my sight. tusaale areada aad degan tahay waxaad dhihi kartaa I live in tusaale let's say ani camal warta nabadda sight. so warta nabadda waa sight meel ka mid ah meelaha aad degan tahay goob ka mid ah goobaha aad degan tahay. okay deer deero waa kaad marka deero an animal. so deer waa deero. sidoo kale deer qaabkan ayay u qoran tahay tan labaad taasoo ma ah gacaliso ama gacaliye ama gacalka like qof muhiima markaad ugu wacayso waa macnaha erey xushmad ah waaye. so waxaad dhahaysaa my deer oo ah deero. sidoo kale deer oo sida u qoran waxaa waaye gacaliye ama mudane waaye. okay pair a set of two waa marka laba shay tusaale ama dacaska waa laba loo xirtaa. so a set of two waa shay aan hal ka mid a socon karin keligiis inuu yahaado waa inay labadaas la socdaan. so waxaa waaye wax walba oo laba ka tirsan laba ah kabaha waa labo indhaha waa labo gacmaha waa labo. so waa labo. okay pair sidoo kale to match or join wax inaad isu ekaysiiso ama aad isku darto sidoo kale way noqonaysaa af Soomaali ahaan pair oo a set of two waxaan dhihi karnaa tusaale af Soomaali ahaan Soomaaliga haddii aad taqaanid commentiga usoo qor af Soomaaliga iga maqan oo macnaha ereyga pair ah. tusaale camal hadda qof markaad dukaan tagayso aad dhahaysid kabaa rabaa kabaha labada markaa macnaha labada isku kaba iskutaan magacaa loo yaqaanaa. okay fair sidoo kale fair waxaan dhihi karnaa equitable or just. equitable macnaha markaad fair markaad waxaa waaye equitable wax markaad jinjin ka dhigayso. tusaale waxaa tahay qof la yidhi qofkana khalad iga galay kaale bal khaladkan macnaha qofkana kaaga dacwoonaya waa inaad labada qof aad sintaa macnaha sinaan waxaa yidhahdaa fair. sidoo kale a public event waxaa kaloo jira waxaa waaye waa munaasabad public ah oo bulshada dhexdeeda lagu qabto with games taasoo leh game la ciyaaro ama ciyaaro leh and rides kaasoo leh ama biskileti hala wado ama geel hala wado marka waxaan dhihi lahaa waa fair. sidoo kale peace ereyga peace waa the absence of conflict ka maqnaanshaha dagaalka. tusaale magaalada dee dagaal uusan ka jirin waa a peaceful place. so the absence of a conflict is called peace. sidoo kale a small part of something like waa qayb ka mid ah shay. tusaale xalwa waxaan cunayay rubac xalwa cunay markaas qof baa ii yimid wuxuu yidhi give me a piece half iga sii ama jeex iga sii. so waxaan dhahnaa a small part of something is peace. qaabkaasaynu qoran tahay tanna qaabkan. so macnaha waxaa waaye waa isku dhawaaq isku dhawaaq waaye isku si looma qoro oo isku soo dhow yihiin laakiin macnaha haddii la dhaha macnahay ku kala duwan yihiin. okay muuqaalkan dheeraada ma rabo waxaan rabaa inaan labadan xabo kusoo gabagabeeyo si muuqaalada kale aad ku baran doontaan qaybta labaad. flour so flour waxaa waaye a baking ingredient waa bur. flour burka anaga waxaa u naqaanaa wheat flour galleyda mugtaagisa waxaa la wheat flour. so flour waa bur. sidoo kale flourish to blossom or to grow waa inaad macnaha ismuujiso mise aad qurxanaato ama so to blossom you are blossom waxaa waaye qof maasha allah tahay. sidoo kale to grow or grow like inaad korto aad weynaato waxaa waaye a flower. okay toe a part of the foot
toe waxaan dhihi karnaa a part of the foot waa suulka waxaa waaye toe. Okay, toe sidoo kale to pull a vehicle inaad gaari jiido waxaa kan dhihi karnaa toe. So toe waa isku mid micnaha isku dhawaq waaye laakiin kala macno. Marka inaan muuqaalkan dheeraado ma jecli oo macnaha inaa qofka uu ku cajiso. Marka waxaan rabaa inaan halkaas kusoo xiro si muuqaalka xiga aad ugu daawataan qeybaha dambe ee dhiman. Marka intaan lamada kuntan waxaa idinkaga tagayaa sidaas nabadgelyo waxaa idin leeyahay muuqaalkiisa xiga kulanti dambe oo xiiso leh insha Allah waxaa idinka codsanayaa in 5,000 aad inoo xirtaan wax yar inoo garsan aad iyo aad u mahadsantihiin.